رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. waxaa laga wariyey abi saciidin alkhudriyi ilaahay raalliha ka ahaadee inuu yidhi waxaan maqlay nebigii sala allahu calayhi wasalama oo odhanaya qofkii maalin jidka alle ku sooma alle ayaa wejigiisa naarta ka fogeeya 70 dayrood. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray. yacni waxaa qofka naarta laga fogaynayaa inta loo socdo naarta 70 sannad. dayrtana waxaa loogu isticmaalay waa 4 xilli ee sannadka, waa dayr ilaa ka dayrta kale. fii sabiilillaahida uu xadiidku caddeeyey waxay noqon kartaa jihaad ku jira amaba si ikhlaas ah oo alla darti ah ayuu qofkaasi alla dartii ugu soomay. qof kasta ayaana noqon kara taas. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.